habeen wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada barnaamijka caawiya caalamka waxaan ahay Cabdiraxmaan Bidhaan wararkeena waxa ugu waaweyn shirweyne nabadeed oo u dhaxeeyay qowmiyadaha Soomaalida iyo Oromada ayaa labadii maalmood ee la soo dhaafay ka socday magaalada Jigjiga warbixin ayaan idinka haynaa warbixino dheeraad iyo falanqeyn ayaan idinka haynaa xaaladda qowmiyadaha Itoobiya warar kale waxa kamid ah Hindiya ayaa gashay taariikh hor leh iyadoo bilowday inay qaaday tallaabooyin sharci oo xukunka Kashmir toos loogu hoos keenayo digreete madaxweyne ayaa lagu tirtiray hab maamulkii hore xagga aroosyada Hindiyana ha noqdo dhaqankii hore ama ka casriga ah waxaanu idin haynaa dadka is aroosanaya ee Hindiya sida ay ugu faafiyeen caalamka muuqaalada aroosyadooda haddii aad doonayso inaad jidhka dhisato ma aha kaliya inaad xarumaha jimicsiga iyo jimka tagto siyaabo kale ayaad jidhkaaga u dhisi kartaa kala soco BBC News Somali telefishinka raadiyaha online-ka iyo baraha bulshada halkan waa BBC London caawiya caalamka sanad ayaa laga joogaa markii ciidamada federaalku ay la wareegeen magaalada Jigjiga kadib markii uu tuunso kala dhex galay dawladda deegaanka Soomaalida iyo ta federaalka Itoobiya waxa taas ka dhashay mudaharaadyo iyo rabshado lagu gubay dukaamo iyo kiniisade laguna bartilmaameedsaday dad aan isirkoodu Soomaalida ahayn isbedelka siyaasadeed ee Abiy Ahmed ku furfuray dhaqaalaha iyo siyaasadda dalka Itoobiya waxa ka dhashay in mid ay ku tartamayaan qowmiyaduhu u dhaco ugu yaraan haddaba 2.5 milyan oo shacab ah ayaa ku barakacay colaadaha Itoobiya Soomaalida iyo Oromada ayaa deegaanadaas ay aadka u saameeyeen kamid ah colaadahaasi marka laga hadlayo tirada guud ee qowmiyadaha Itoobiya hadii aynu eegno Oromadu waxa ay tahay 4% halka ay Soomaaliduna tahay 6.2 Oromada iyo Soomaalidu hadaba waxay degan yihiin labada ismaamul deegaan ee ugu baaxadda weyn Itoobiya waxaana leeyihiin xad dhererkiisu gaarayo 1400 kilomitir waxaana u dhaxeeya muran dhuleed oo ku salaysan khayraadka iyo lahaanshaha dhuleed haddaba shir u socday dhawaan labada qowmiyadood ayaa ka soconayay labada cisho ugu dambeysayba magaalada Jigjiga ee dalka caasimadda ismaamulka Soomaalida kaasi oo looga gol lahaa in xal waara lagu gaaro colaadda labada dhinac u dhaxaysay wariyaha BBC-da Axmed Xaaji Xasan ayaa ku sugan Jigjiga imika oo warbixintan goor dhaweed noo soo diray jawiga Jigjiga sanad ka hor sidan ayuu ahaa waxaa daboolka ka qaadmay colaad isir ku salaysan oo u dhaxaysa qowmiyadaha Itoobiya markan waa wadaagta Soomaalida iyo Oromada oo qarniyo nabad ku wada noolaa waa colaad aan waxba la isla harin oo lagu burburiyay xarumihii ganacsiga iyo guryaha dadka Oromada sidoo kale qulqulatooyinka waxa ay saameeyeen xoolo dhaqatada iyo beeraleydii Soomaalida ee ku noolaa deegaanka Oromada iyo kuwa xadka ku teesanaa oo la barakiciyay sanad kadib waa nabad iyo yadidiilo lagu baadi goobayo walaaltinimo iyo wada noolaansho waa waxa ay doonayaan ergooyin ka badan 1400 oo qof oo isugu yimid Jigjiga waxa hogaaminaya labada madaxweyne ee deegaanada Soomaalida iyo Oromada ee Itoobiya waxayna dhiirigelinayaan nabad iyo daris wanaag dhinaca dad badan bay dib u dejiyeen maadaama oo xilli horeba ay hawl galeen dhinacanaga laakiin maadaama oo isbedelkii uu ku dhacay si qalalaas oo kala muddana ay qaadatay in nidaam la dhiso cagjiid baa ka jira saas ay tahay ugu yaraan 650,000 in ka badan oo dad oo ku barakacay colaadaas hadda ilaa 300 oo kun waa la celiyay inta kale hawshada qaanta lagu hayo isdhexgalka waa qayb muhiim u ah colaadan in la dhameeyo noloshana ay sideedii hore ku soo noqoto Oromo iyo Soomaali waa mid izina zaadamo linooru yemichilu dhibaatada u dhaxaysa dadkan deriska ah si loo xaliyo waxaan u maraynaa dhaqanka iyo wada hadal waana hab taariikhi ah oo soo jireen ah oo aan sii wadi doono waa inaan adkayno dhaqanka iyo midnimada labada shacab nabarada ugu waaweyn ee la rabo in la dhayo waa guryo celinta dadkii rabshadaha ku barakacay iyo isu socodka oo la isu furo dhayida boogihii colaadda waa waxa laga dareemayo hadda Jigjiga goobahan ganacsiga waxa ay ka mid ahaayeen kuwii la gubay xilligii rabshadaha ay socdeen hadda se dib ayaa loo dhisay Soomaalida iyo Oromadana way wada ganacsanayaan
waxayna sababeen inuu soo degdego isbeddelkii ka dhacay dowlad deegaanka Soomaalida ee Itoobiya. waxaan arkaa guul iyo farxad noo soo hoyatay haddaan nahay labada deegaanka Oromiya iyo deegaanka Soomaalida. waa maalin nagu abuurtay farxad weyn. midnimada Soomaaliya iyo Oromo waa mid dhaqanka iyo dhiigga ay wadaagaan. waa walaalo, waa carruurta hal waalid. Oromada iyo Soomaalida hooyo keli ah baa wada dhashay. dad baa ina kala geeyey. marka dib baan isugu soo noqonaynaa. midnimadeena ayaan weynaynaynaa. macadda sida dhabta ah ee labadan hogaamiye ee arrimahan uga heshiiyeen hase yeeshee waxay ku adkaysanayaan in laga gudbo khilaafka si nabad ahna lagu wada noolaan doono. waxaase la isweydiinayaa ma noqon doonaa kulankan mid miro dhala. Axmed Xaaji Xasan, BBC, Jigjiga. haddaba waxaa si toos ah khadka magaalada Jigjiga ugu jirta Filsan Cabdilaahi Axmed oo madaxa u ah dhaqdhaqaaqa nabadeed. Filsan ku soo dhawow barnaamijka BBC-da. haddeenu ka hadallo shirkan maanta dhacay iyo arrimahan Filsan muxuu kaga duwan yahay shirarkii hore dib u nabadeynteenu arki jiray ee aynu u soo joognay? waad mahadsan tahay Cabdiraxmaan. shirkan wuxuu kaga duwan yahay shirkii ugu horeeyay horta nabadeynta anaga bilowna hormuud u ahaan shacabka Soomaalida iyo shacabka dhalinyarada Oromada oo Qeero la magac baxday. si weyn ayaan u qabanay. gobollo badan baan marnay waxaan soo wada marnay magaalooyinka Oromada oo dhan. waxa haddaba annaga caqabad nagu ahaa maanta caqabad kuma noqonayso xukuumadaha maadaama iyagu dawlad yihiin. marka waxaan ku faraxsanahay annagoo as a volunteer ku bilownay maanta indaanu dawladdii ku wareejinay meel sare maasha Allah gaarsiiyeen oo gaadhaysana. marka caqabadaas jiri jirtay dhalinyarada ama caqabad ku ahayd dawlad markay tahay caqabad kuma noqonayso. marka taasaa ka koowa. waan gartay Filsan, laakiinse waxaa la isku hayaa Filsan oo wadogta waxyaabo waaweyn baa la isku hayaa, dhul baa la isku hayaa, deegaan baa la isku hayaa. waxaa la isku hayaa waxyaabo caynkaasoo waaweyn. ma kula tahay in xal loo helayo dhaba? hadday xukuumaduhu sida maanta ay u wadaan ay u sii wadaan waa laga helayaa. balse hadday ka seexdaan ama ay ka cagajiidaan waa dhibaatooyin. waa saad sheegto Oromada iyo Soomaalidu xuduud baa ka dhaxeeya, dhul baa ka dhaxeeya, waa dad isdhalay, waa dad isdhexgalay. marka la eego qoomiyadaha kale Itoobiya dadka aad iskugu dhowaynu nahay. marka khasab bay noqonaysaa in xal loo helo midhana ay ka dhaliyaan xukuumadda hadda joogta teenana ha noqoto toodana ha noqoto. waa saxniyad wanaag u wanaagsan yahay Filsanay, laakiin ma la sameeyay qodobo cadcad oo maalinkan maanta lagu tabagalayo in heshiis dhaba la gaadho mise waxa weeyaan laablakac iyo xaflado waaweyn iyo maalinkan maanta in la wada dhunkado hadhowna ay hawsha halkeeda ka socoto? waan sugaynaa sida ay u ridi doonaan. annagu marka horenu barnaamijka bilownay waxay ahayd dad baa barakacay, dad baa waad sheegtay nabaro kala gaadheen labada dhinacba. sidii nabarada iyo boogaha loo dhayi lahaa, sidii dhibaatooyinkii dhacay iyagoo la iska indhatirayn ama aan la dhaafaynin balse xal waaro loogu heli lahaa. marka waa khasab xukuumaduhu inay taas maanta ka wada fadhiistaan oo welibaba adkeeyaan. waan gartay xuduud kasta amnigiisa iyo gobolka maamulkiisa ay saxiix culus ka qaadaan mas'uuliyadda qofka inay qaadayaan. marka waan gartay khasab bay ku tahay baan u maleynayaa taas. waan gartay Filsan, waxaan kusoo gabagabeyn lahaa dawladda Itoobiya ee federaalka ah door intee leeg bay ka qaadan kartaa ama ay ku leedahayba dib u heshiisiintan ee labada qowmiyadood ee Soomaalida iyo Oromada oo aad ogtay labadii gobol ugu ballaarnaa inay degan yihiin hawlo badan ay u yaalaan? dawladda Itoobiya iyadabay waa labada qowmiyad ugu waaweyn Itoobiya, Oromada iyo Soomaaliduba. marka Soomaaliduna waa muhiim maanta inay doorkooda ka ciyaaraan. marka federaalku Soomaali sidii shalay ahayd ma ahaanayso. inay mudnaanta siiyaan way ku khasban yihiin, inay soo dhaweeyaan way ku khasban yihiin, inay tusaan midnimada jirta Itoobiyaanimada inay naga ciyaarsiiyaan oo siyaasadda kursiga naga siiyaan way ku khasban yihiin. qoomiyad kastoo Itoobiyana haddii taa maanta la dareensiin waayo dhibaato badan ayaa ka imanaysa. waan gartay aad baad u mahadsan tahay Filsan Cabdilaahi Axmed madaxa dhaqdhaqaaqa nabadda oo Jigjiga toos nagaga soo biiraysay. Filsan waad mahadsantahay.
bal markana aynu eegno qodobada kale ku jira wararka caawa madaxweyne Trump ayaa sheegay inaan nacaybku meel ku lahayn dalka Mareykanka kadib laba weerar oo ka dhacay dalkaasi oo dad badan lagu toogtay Texas iyo Ohio ayaa 29 qof ku dhinteen Trump laftiisa ayaa lagu eedeeyay inuu yahay ninka fidmada toosiyay nin cad ayaa loo xiray dilalka Texas waxa uu soo dhigay oo hore inuu ninkaasi duulaanka ka hortagayo Hispaniga ee gobolka Texas ayaa internetkiisa soo dhigay 19 qof ayaa ku geeriyooday qarax ka dhacay dibadda dhismaha cusbitaalka kansarka ee Masar ee magaalada Qaahira mas'uuliyiinta ayaa sheegay inaan lahayn cadeymo muujinaya in qaraxu argagixiso uu ku lug leeyahay waxay yiraahdeen gaari haadka khaldan marayay ayaa gawadhidii kala jiiray oo halkaas qaraxu ka dhacay maxkamad ku taala Nigeria ayaa dambi ku sii daysay hogaamiyaha ururka Shiicada ee laga mamnuucay dalkaasi iyadoo loo ogolaaday inuu Hindiya u socdaalaha ula caafimaad dartood Al-Seseki ayaa la xiray 2005 markii ay isjiideen 2015 markii ay isku dhaceen ciidamada dawladda iyo taageerayaashiisa booliska Hong Kong ayaa gaaska dadka ka gelmaysa ku riday kooxo rabay inay qasab ku joojiyaan shaqo joojinta guud ee gaadiidka dadweynaha ee Hong Kong rakaabka ayaa meelo badan la carqaladeeyay iyadoo wadooyin badan la xanibay 200 oo duulimaad ayaa la hakiyay madaxa xukuumadda Hong Kong Carrie Lam ayaa ka digtay dibadbaxyo rabshado wata oo ay sheegtay inay meel halisa ku wadaan magaaladaasi mar walba waxaad nagala socon kartaan BBC Somali Facebook fadlan raadi BBC News Somali halkaas aad ka heli doontaan muuqaalo falanqeyn dheeraad ah iyo wararka ugu waaweyn si aad u hesho wararkii ugu dambeeyay Soomaaliya iyo caalamka nagala soco BBC Somali Twitter iyo Instagram wali waxa inoo soo socda haddii aad doonaysid inaad jidhka dhisato ama ma aha oo kaliya xarumaha jibka tagto meel kale waa tagi karaysa soo dhawaada daawadayaal wali waxa daawanaysaan caawiya caalamka ano Cabdiraxmaan Bidhaan idin la socodsiinaya balan idin xusuusiyo qodobada caawa wararka ugu waaweynaa shirweyne nabadeed oo u dhaxeeya qowmiyadaha Soomaalida iyo Oromada ayaa labadii maalmood la soo dhaafay ka socday Jigjiga halkaas ayaa maanta lagu soo gabagabeeyay wali waxa iyaduna inoo soo socda Hindiya oo iyaduna gashay taariikh hor leh oo ku saabsan Kashmir balaynu sii wadano sheekada Kashmir ee Hindiya waxa ay dawladda halkaasi qaaday talaabooyin rabshado dhalin kara Hindiya ayaa waxay ka noqotay qayb ka mid ah dastuurka oo ah qaybta gobolka Kashmir oo iyadu xukunto xuquuq gaar ah siinaysay waa ka wasiirka arrimaha gudaha Hindiya oo u soo jeedinaya baarlamaanka isbedelkan waxaan soo jeedinayaa dalabka lagu ogolaanayo dib u qaabaynta Jammu iyo Kashmir dibna loo eego dastuurka 2019 waxaan soo jeedinayaa ogolaanshaha in miiska la soo saaro qaanuun wax lagaga bedelayo sharciga Jammu iyo Kashmir ee 2004 wuxuu doonayaa in la bedelo hadaba sharciga 370 ee dastuurka Hindiya isagoo ka xayuubinaya goboladu inay lahaadaan dastuur iyaga u gooni ah oo ay u madax banaanadaan arrimahooda oo dhan marka laga reebo arrimaha dibadda gaashaandhigga iyo isgaarsiinta haddii aynu eegno hadaba gobolkan Kashmir ayaa waxa ku muransan wadamada Hindiya iyo Pakistan wuxuuna khilaafkan soo jiray tan iyo markii labadaasi wadan ay xornimadooda qaatay 1947 madaxii gobolada Jammu iyo Kashmir ee waqtigaasi ayaa doonayay inay joojiyaan qabaa'ilka Pakistan inay ku soo duulaan halkaasi sidaas ayayna ku go'aansadeen inay Hindiya raacaan Hindiya iyo Pakistan ayaa hadaba labaduba ay gobolkan sheegtaan laakiin mid kastaba qayb ayuu ka xukumaa gobolkan waxa gobolkan kala qaybiyo waxa loo yaqaano khadka cagaaran ama khadka xukunka xisbiga talada haya ee hadaba Hinduuga ah ayaa wacad ku maray inay laalayaan sharcigaasi 370 kala yiraahdo ololihii 2019 markii ay ku jireen Hindiya ayaa u dirtay gobolkan kumanaan ciidamo dheeraad ah iyadoo sidoo kalena siyaasiyiinta gobolka xabsiga uga dhigtay guryahooda ka hor inta aanay ku dhawaaqin Pakistan ayaa iyadu falcelin weyn ka sameysay dadka hadaba iyagu ka soo horjeeda isbedelkan ayaa ka walaacsan waayo waxa ay leeyihiin sharcigan wuxuu ogolaanayaa in dadka ku nool qaybaha kale Hindiya ay Kashmir ka iibsan karaan guryo taasi oo ah mid aan la ogolayn imka reer Kashmir loo ogoliyay taasi waxay wax ka bedeli doontaa gobolka kaliya ee muslimiintu ku badan yihiin ee Hindiya waa tan wariyaha magaalada Delhi Yogita Limaya oo ka waramaysa Pakistan completely rejects this move. This is unacceptable.
bakistaan gebi ahaanba way diiday tallaabadan waa mid aan la aqbali karin kashmiir waa la wada ogyahay in laysku khilaafsan yahay hindiyana way aqbashay in laysku haysto waana sababta aan ugu darnay wadahadallada waaweyn oo aan yeelannay in ay tahay mid ka mid a arrimaha ugu waaweyn indiya iyo bakistaan ay isku haystaan tallaabadan waxaa ka soo horjeeda qof kasta oo kashmiiri ah fikradaha siyaasaddana ma oggola xitaa kuwa qunyar socodka ah way ku gacan sayreen rejected this. Even the so-called moderates have rejected this. raalli ka hadalkaasi waxaa wasiirka bakistaaniga imika ayaa waryahayaga magaalada New Delhi ay ku soo biiraysaa. Well, it's a significant day for India, I can tell you that. We've seen Hindiya waxay u tahay maalin weyn. Taas ayaan kuu xaqiijin karaa. Waxaan aragnay calaamado toddobaadkii hore kuwaasoo sheegaya in tani ay ku jirtay qorshaha dawladda. Maantana way dhacday. Waqti dheer ayay tani qayb ka ahayd qorshaha xisbiga BJP. Doorashada markii lagu guda jiray, qayb weyn ayay ka ahayd ololahooda. Waxayna aadi doonaan dadkii iyaga doortay si ay ugu sheegaan inay ballantooda oofiyeen. dabcan wali waa in madaxweynuhu uu saxiixaa marka la dhaqan gelinayo balse dad badan ayaa isweydiinaya dastuurinimadeeda ma sharciba maadaama aysan xildhibaanadu u codaynin arrinkan sida tallaabadan loo qaaday ayay dadku ka yaaban yihiin toddobaadkii tegay 10,000 oo ciidamo dheeri ah ayaa loo diray qaybta Kashmir oo ay Hindiya xukunto xalaydan dhowr hogaamiyaal siyaasadeed ayaa lagu xukumay xabsi guri bandow ayaa lagu soo rogay gobolka iyadoo taleefanka iyo internetkaba laga jaray taasi macnaheedu waa inay filanayeen dibadbaxyo balse dadka halkan ku nool iskama ogolaan doonaan tallaabadan They are expecting that there will be protests that people there aren't going to take this lying down iminkana waa faaqadaadii ciyaaraha waxa ay la joogaan idinku wareejinaya Cismaan Cabdi Xasan oo la socodsiinaya Cismaan ku soo dhawow Cismaan caawa dhalinyarada cuslaatayna barnaamijkaaga waxba ugu jiraan u maleynaya dhalinyarada cuslaatay waxaan u haynaa habab badan ay miisaanka ku dhimi karaan iyaga oo aanan samayn hawl badan laakiin Cismaan oo dad badan baa jimka gala ama meelaha dee waxoogaa ay sir qaad haddana dib u caajisaan taa iyada xal ma loo helaya xal aad weyn ayaan caawa u hayaa bal ka waran haddii aad doonayso in aad jirkaaga aad dhisto balse aadan haysan lacagtii aad ku bixin lahayd jim qaali ah marka waxa ay tagay in aad adiga samaysato jim xaafadeed waxa la yiraahdo jimka xaafadaha ayaa noqonaya kuwa ugu caansan qiimahoodana uu aad u jaban yahay marka aad doonayso in aad dhisato jirkaaga waatan warbixin ay jimka noocaas ah BBC kaga diyaarisay oo gaana laga sameeyay dhagxaan shub ah iyo kuraas la qaadi karo ma ahan waxa ugu horeeya ay kugu soo dhacaya marka aad ka fakarayso jirdhis jimamka laga sameeyo qaybaha dambe guriga ee gaana xawaare ayay ku socdaan waxay helaan ciyaartoy baahi u qabta sida fudud ee lagu heli karo iyo qiimaha jaban ayaa keenay dalabka kordhaya ee dadka murqaha dhista mid ka mid ah jimamka ay joogaan kuwa ugu caansan gaana ee jirka dhista waa Canon Gym waxa uu ku yaalaa gobolka bariga ee Akrobong siddeed sano ku dhowaad ayaan waday sababtoo waan jeclahay jimka meelo ayaan tagay waxaan arkay sida loo isticmaalo biraha la qaado waxaan ka sameeyay biraha nashamiinto ciid iyo dhagax yaryar bac ayaan sameeyay oo gudaha u geliyay si aan u sameeyo birahan jimamkan waxay isu keenaan shakhsiyaad kala duwan oo da' walba leh maskaxdana ku haya hal ujeed oo ah in ay noqdaan kuwa ugu fiican ilamaha inay da'du muhiim tahay tusaale ahaan waxaan boodi karayaa saacadiiba oo aan si aan kala joogsi lahayn u boodi karayaa 11,000 oo booto waxaan rabaa inaan noqdo qofka adduunka ugu cimriga dheer jimamkan waxay leeyihiin caqabadahooda caqabadaha ay jimamka noocan oo kale ay leeyihiin ayaa ah in ugu horrayn ay yaalaan qalab xadidan tusaale ahaan waa ay adag tahay in jimka noocan oo kale ah aad ku dhistid murqahaaga sababtoo ah qalabkiiba ma yaal meesha caqabada kale ayaa ah badqabka waana in aad u taxadartaa Enes Dansa Akwama waa tababare macallin u soo noqday kuwa ugu caansan dadka jirkooda dhisa ee Gaana waxaana ka mid ah kuwa badan oo sanadkii hore ku guulaystay tartanka Afrika ee Arnold waa inaan alxanlaha tago oo aan cabirka siiyo una qoro sida aan doonayo in loo sameeyo waxaan isla garanay waxyaabo kuwan oo kale ah taasina waa sida aan qalabkan ku samayno dukaamada biraha la tuuray ayaanu ka soo helnaa kadibna annaga ayaa isu geynaa jimamka qaybaha dambe ee guryaha laga sameeyo waa hab qiimo fiican u leh kuwa jirkooda dhisa iyo inta kale ku cusub mana jirto calaamad muujinaysa in ay hoos u dhacayaan waa si fudud ay caqabadii jimka kaga gudbeen warar kale ciyaarahana caawa waxaa ka mid ah
ciyaarihii shalay aynu ku bilaabana Manchester City ayaa garoonka Wembley ku qaaday koobka Community Shield waxay 5-4 rigoorayaal ah kaga adkaadeen Liverpool. Raheem Sterling ayaa goolka City ay ku hormartay dhaliyay iyada oo Joel Matipna uu kii Liverpool ay ku bareejaysay keenay kadibna waxay tagtay rigoorayaal 4 rigoora ay City heshay halka 3 ay Liverpool heleen. Manchester United ayaa Harry Maguire ku qaadatay 97 milyan oo dollar waa qiimo sare oo laga bixiyo ciyaartoy difaac ah ciyaartoygan u dheela qaranka England ayaa ogolaaday heshiis 6 sano ah uu kula galayo Man United waxaana suuragal ah in uu sanad kale lagu kordhiyo qiimaha Maguire lagu soo bixiyay waxa uu ka badan yahay 91 milyan oo Liverpool ay kala soo baxday ciyaartoygii Southampton ishii January ee sanadkii 2018 ciyaarihiina waa naga intaas bidhan mahadsanid Cismaan Cabdi Xasan ayaa inoo soo jeedinayay xagga ciyaaraha waynu ka gudbaynaa imikana waxaan galayaa xagga aroosyada aroos dhaqameedyada Hindiya waxay celcelisahan socdaan 3 maalmood waxay noqon karaan kuwo kharash badan ku baxo isla markaasina ay ka soo qayb galaan marti badan waa la cunteeyaa waa la qoobka ciyaara laakiinse waxay noo hayaa Mawlid Xaaji Cabdi kuwani waa sawirrada arooska Cabdixafiid iyo Nayana ee Instagram-ka waxay doonayaan in sawirradoodu caan noqdaan laakiin wax kasta ma ahan sida ay u muuqdaan goobta lagu qaaday waa god weyn oo ku yaal beerta sawir qaadaha waxay ku kacday 100,000 oo rubi oo u dhiganta $1,500 oo dollar waxaan arkay masawirada aroosyada saaxiibo iyo qaraabada waxa iska caadi ahayd in lagu galay xeebo iyo doonyo guryo ka samaysan waxaan ku fakaray inaan sameeyno sawir kuwaasi ka duwan oo xiiso leh marka sidaasi ayaan dooranay sawirradan qarashka badani lagu bixinayo ayay hadda lamaanaha aroosyada Hindiya ku doonayaan inay ku soo jiitaan dadka araggooda iyo baraha bulshada lamaanahani waxay ku nool yihiin Chertalla oo ah magaalo xeebeed ku taala Kerala Abhijaad waa 26 jir ka shaqeeya shirkad samaysa bisbaaska Nayana oo 23 jir ah waxay hadda ka qalan jabisay kalkaalisinimo arooskooda waxaa ku baxday 14,500 oo dollar markii aynu sheegnay qaabka sawir qaadista qofna ma aanu xiisaynayn ആർക്കും അത്ര താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല qaarkood ma jeclaysan inay galaan ഇത് കേട്ടപ്പോഴത്തേക്കും വേണ്ടാന്ന് തന്നെ പറഞ്ഞവരുണ്ട് laakiin markii ay sawirada arkeen iyo albumada dad ayaa qiray inay ahaayeen kuwo aad u fiican പേര് പറഞ്ഞു നന്നായിട്ടുണ്ട് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി sida ay sheegayso Statista ku dhawaad 1.3 bilyan oo qof ayaa ku nool waddanka Hindiya 337 milyan oo ka mid ah ayaa leh telefoonada caaqilka ah in ka badan 326 milyan ayaa adeegsada mareegaha internetka anigu waqti badan kuma bixiyo baraha bulshada laakiin had iyo goor waxaan arkaa iyada oo inta online ah dhab ahaan waan jeclahay isticmaalka baraha bulshada laakiin markaan online ahay waxaan arkaa isaga oo isna online ah online landaaw hadda waxaan hubinayaa in ay online tahay iyo in kale aroos laguma raago lagamana raaga baa la yidhi barnaamijkii caawina intaasi ku dheeyahay waxaan idin leenahay nabadgelyo